waxay soo bilaabanaysaa sanadkii 1980kii dalka Kuwait ayay ka dhacday. Qisadu waa mid aad u la yaab badan. Subaxyada ka mid ah ayaa waxaa soo kacday hooyada qoys reer Kuwait ah, qoys maasha Allah umurahoodu ay tamaam yihiin. Markay soo kacday ayay waxay u yeertay haweeneydii Hindiyada ahayd ama Hindiya u dhalatay ee shaqaalaha ahayd, taasoo guriga ka shaqayn jirtay ama khaadimadii guriga. Markay u yeertay dabcan khaadimadii uma jawaabayso, way u yeertay laakiin ma jawaabayso. Kadibna qolkeedii jiifka ayay ugu gashay. Markii ay gashay qolkii jiifka ee shaqaalaha, waxay aragtay gabadhii oo xaaladan caadihiin ku jirta. Gabadhu way sarqaansan tahay, way miir daboolan tahay oo kaleeto. Xaalad caafimaad oo liidatana way ku jirtaa. Way qaawan tahay oo dharkeedii ma saarno, ma asturna gabadhu. Kulley waxaad moodaa in gacmo kale ay waxaan ku lug yeesheen. Kadibna gabadhii durba booliiska ayay u yeertay. Booliiska ayaa meeshii soo gaaray. Gargaarka degdega ah ayaa yimid. Gabadhii waa la qaaday, isbitaalaa la geeyey. Kadibna gabadhii markii la eegayba saa gabadhu kufsi ayay la kulantay. Dhanka kalena intaan kufsiga loo geysanin ka hor ayaa waxaa loo adeegsaday maado mukhadir ah, maado daraagis ah oo dadka miyirka ka qaata. Maadadaasi oo ahayd maado la yaab badan oo booliisku xitaa aysan horay u arkin, sababtoo maadadu dhowr sifo ayay kulmisanaysaa. Marka ugu horeysa maadadu waa qofka way miyirka ayay ka qaadaysaa. Midda labaadna qofka shalal ama qofaan dhaqaaqi karin jir ahaan ayay ka dhigaysaa, oo qofku xubnihiisa xitaa ma kantarooli karo, ma dhaqaajin karo. Dhanka kalena xoogaa neef qabatoomid ayay ku sababaysaa. Marka maado aad u la yaab badan ayaa gabadha loo adeegsaday. Maadadii markii la baarayna waa la aqoon waayey. Gabadhii gargaar degdeg ayaa loo sameeyey, way soo miyirsatay. Dhanka kale xoogaa maadadu laftirkeedu waxay ku sababaysaa gubasho, xoogaa maqaarkeedu inuu yara gubanayo oo kaleeto. Waa maado waxyaabo badan la isku daray kulli ka samaysan. Ala kulli xaal gabadhii way soo miyirsatay. Kadibna sarkaal dambi baarayaasha ka mid ah ayaa kiiskii la wareegay. Sarkaalku markii ugu horeysayba qoyska gabadhu ay u shaqaynaysay ayuu aad uga sheekaysanaa. Waxa uu aaminsanaa in gabadhan masaakiinta ah qof ka mid ah qoyskan ay u shaqaynaysay uu dhibaatadaasi u geystay. Laakiin saaxiibayaal, sidaasi wax ma u jiraan. Ma ogin, mana garanayno sida ay wax u jiraan. Laakiinse sarkaalkii dambi baaraha ahaa ayaa dambi baaristii sii waday. Waxa uu dambi baaris ku sameeyey dad badan oo ka tirsan xubnaha qoyska. In badan ayuu isku dayay inuu dambi baaris ku sameeyo. Qofba mar ayuu la fariisanayay. Hooyada qoyska ayuu ka bilaabay, aabbaha, caruurta, dhammaan wiilasha ayuu dambi baaris ku sameeyey. Laakiin waxaa muuqanaysa dhammaantood in farahooda aan laga helaynin isla meeshaasi uu dhibku ka dhacay ama qolka ay gabadhaasi shaqaalaha ah jiifanaysay. Kadibna maadaama gabadhii ay soo miirsatay, gabadhii laftirkeeda ayaa sarkaalkii dambi baaraha ahaa la fariistay oo uu dambi baaris ku sameeyey. Su'aalo badan ayuuna weydiiyey. Waxa uu gabadhaasi weydiiyey waxa ay aragtay, sida ay wax u gaareen iyo waxay xasuusato. Balse gabadhii waxay sheegtay inaysan waxba xasuusaninba. Waxay tiri habeenkaasi markaan jiifanayay, dabcan markaan jiiftay kadib ayaa waxaan ku soo kacay in qof nin ah uu doonayo inuu aniga xaggayga soo aado ama uu i qabto. Xilligaasna maado ayuu ugu buufinayay, aniguna kaliya inuu isii qabanayo umbaan arkayo. Markaas ayaa miyir iigu dambeysay. Waxa uu igu sameeyeyna anigu waxba kama ogi ayay gabadhu leedahay. Waa yaab iyo amakaag. Sarkaalkii dambi baaraha ahaa waa uu yaabay. Waxa uu isiri kolley qofku waxaan sameeyey qoyska uu ka mid noqon karaa, qof qoyska ka baxsanna waa uu noqon karaa. Laakiin saaxiibayaal, sarkaalkii dambi baaraha ahaa dambi baaris kasta oo uu sameeyey iyo dadaal kasta oo uu bixiyey, ugu dambeyn sheekadu way ku adkaatay. Meeshaasi faro waa laga helay, laakiinse qof kasta oo la barbar dhigay oo xubnaha qoyskaasi ka mid ah ma uusan noqonin. Waxay ka dhigan tahay taasi qofkani waa qof qoyska ka baxsan. Ala kulli xaal saaxiibayaal, kiiskii waxa uu noqday غير محلول, unsolved case, looma hayo wax cadayna. Maxaa la sameeyaa? Kadib xitaa dadkii deegaanka way caroodeen ayagoo dhahaya sidee kiis noocaasa loo xalli waayey. Gabadhu waa gabar ajnabiyada,
yacni dadkii oo dhan, dumarkii wixii oo dhan waa laisla salsalay. waxaa la yidhi ninka waxaan sameeyey ee maadada noocaana isticmaalay, xitaa maadadii aad garan weydeen, aduu taasi cadaadis weyn ayay booliiska ku abuurtay. dembi baarihiina sidoo kaleeto kiiskii waxa uu ka dhigay mid qabow oo aanan wax caddayna loo hayn. laakiin waa la sugayaa haddii dhacaan dhacdooyin kale oo wax ka soo cusboonaadaan, wax la xiriira xitaa kiiskan ay dhacaan ama xitaa kiisas la mida ay dhacaan, waxay ka dhigan tahay in la isku xiri doono dhacdooyinka. saaxiibayaal, kiiskaasi markuu halkaasi ku dhammaaday oo muddo kooban oo laga joogay keliya bil, ayaa waxaa dhacday dhacdo kale oo aad u la yaab badan. dhacdadan waxay ka dhacday deegaanka Rawda, mandiqatu Rawda. mandiqadan waxaan filayaa qisadii yacni Xanaan iyo Fawzi ee qisada jacayl ahayd inaan uga soo sheekaynay, waa meeshii ay ka dhacday. dabcan calaa kulli xaal saaxiibayaal, mandiqatu Rawda waxaa ka dhacday dhacdo kale oo la yaab leh. habeenada ka mid ah waxaa gurigan wada joogay haweeney iyo gabar ay dhashay. haweeneydan yacni hooyadan iyo gabar yaroo ay dhashay oo qaangaara ayaa wada joogay oo halkaan gurigan ku wada noolaa keligood. kadibna dabcan 2 qoloo kala duwan ayay kala jiifeen. nin ayaa guriga soo galay, kadibna ninkii hooyadii ayuu u tegey, maadadii ayuu ku buufiyey, kadibna waa uu soo dhaqaaqay. waxa uu u yimid gabadhii, kadibna gabadhii ayuu bilaabay inuu kuufsado. dabcan maadada uu ku buufiyey hooyadu waa maado aanan u saamaxayn hooyadu inay soo dhaqaaqdo oo gabadheeda ay caawimaad u samayso si kasta oo codka gabadheeda ay u maqlayso. waa yacni maado qofka miyirka ka qaadaysa, tabarta ka qaadaysa, oo qof curyaan oo kale ka dhigaysa, xubnihiisana uusan qaadi karin. maado neef qabatoomid ku sababaysa, sidoo kalena kuu sababaysa in qofka maqaarkiisu uu kulayl dareemo. hooyadii gabadheedii ma caawin karto, ninkiina gabadhii ayuu bilaabay inuu kuufsado. laakiin gabadhu markaan maadadii kumuusan buufin, ku buufi ayuu maagay, way iska caabisay, dagaal ayaa ka dhacay. laakiin ugu dambayn gabadhii awood ayuu u yeeshay inuu kufsi daran u geysto. ugu dambaynna ninkii dembiilaha ahaa markii ujeeddadii iyo hadafkii uu socday uu gaaray, waa uu iska tegey. kadibna gabadhii oo kufsi loo geystay oo murugaysan oo ooyeysa ayaa waxay la xiriirtay booliiska. kadibna booliiska ayaa meeshii soo gaaray. durba booliisku waxay arkeen dhacdadan la yaab kale ee gurigani ka dhacday. gabadhu intaysanba booliiska u imaanin ayay hooyadeed u tagtay, waxayna aragtay hooyadeed inay xaalad halisa ku jirto oo inay geeriyooto ku dhowdahay. markii booliisku soo gaareenba gabadhu aaday u qaylisay ayadoo dhahaysa hooyaday. booliisku way qaadeen hooyadii, isbitaala la geeyey, gargaar degdega ayaa loo sameeyey. durba waxaa la ogaaday maadadani inay tahay maado la mid ah maadadii ay horey u arkeen ee ay garan waayeen. sidoo kalena gabadhii kufsiga loo geystay ayada laftirkeeda dhaawacyo yaryar ayaa soo gaaray. saaxiibayaal, dhibaatada qoyskan gaartay ayaa waxay argagax ku riday dhammaan qoysaskii ku noolaa guud ahaan dalka Kuwait. saxaafadda oo dhan ayaa bilowday inay sheekadan ka sheekayso. waxaa bilaabatay in la yidhaahdo ninkaasi mujrimka ah booliisku haddaysan soo qabanin sidee loo noolaanayaa, sidee loo wada joogayaa. sababtoo waxaa muuqanaysa ninkani inuu qoyskani ilaalinayay, dhanka kalena uu ogaa qoyska inay yacni keliya ahaayeen hooyadan iyo gabadheeda. haddii ay dad kale meesha joogi lahaayeen kumuusan dhiiran lahayn. waxaana muujinaya arrintaasi sida degdega ah ee howlgalkiisa uu u fuliyey, islamarkaana ay wax walba ugu suurta galeen. dadkii waxay bilaabeen inay booliiska dhaleeceeyaan. booliiskuna waxay bilaabeen inay baaritaano xooggan sameeyaan si ninkan dembiilaha ah ee dadka argagaxa ku riday ay gacanta ugu soo dhigaan. laakiin saaxiibayaal, sheekadu ma fududa. gabadhii ayaa dembi baaris lagu sameeyey. markii dembi baaris lagu sameeyey oo la weydiiyey sida uu u egyahay ninkaasi, waxay sheegtay sifooyin uu wiil kasta leeyahay. waa sida inay leedahay yacni gabadh waxay tiri ma dheera mana gaabna, waa dhexdhexaad. waxay tiri sidoo kale ninku aad ayuu jirkiisu u xoogan yahay oo uu u fudfudud yahay. yacni waa nin degdeg wax u qaban kara, awood xoogganna leh. taasi ayaa waxay muujinaysaa in ninkani in lasoo qabto ay adag tahay. dhanka kalena waxaa muuqanaysaa in ninku uu caqli badan yahayo waxa uu isku dayayaa inta tabartiisa inuu is aruuriyo, umurihiisa waqtiga ugu habboon uu ku aadiyo iyo waxyaabo la mid ah.
markii ugu horreysay baa dembi baarayaashu waxay isku xireen labadii kiiskii gabadhii hindida ahayd ee kufsiga loo geystay iyo kiiskan, maadaama labadaba la isticmaalay maado labadaba isku faro isku mida meesha laga helay, dhanka kalena halkaasi nin uu yahay ninka dhibaatada geystay. sida muuqanaysa ninkaasi aad ayaa looga argagaxsanaa. dumarkii oo dhan waxay bilaabeen inay ka sheekeeyaan ninka maadada adeegsanaya oo habeenkii socda. waxaa bilaabatay in maqribadii guryaha la soo xirxirto, raggu ay imaadaan habeenkiina soo jeedaan si ay dumarkooda u ilaaliyaan. cabsi iyo argagax, booliisku cadaadisku ku sii batay, baaritaano ayay sameeyeen. waxay isku dayeen inay ogaadaan labadaasi qoys xiriirka ka dhexeeya, yacni qoyskii dhibaatada loo geystay oo gabadhii hindida ahayd ee shaqaalaha ahayd ee kufsiga loo geystay iyo qoyskan hadda dhibaatada kufsiga loo geystay. labadii qoys xiriirka ka dhexeeya markay baareen, saa labada qoys shaqo iskuma leh, mana isgaranayaan, taasoo ka dhigan in ninkan dembiilaha ahi uu yahay nin baaritaanadiisa iyo waxyaabaha qorshayaashiisa ah si ka fiirsila u samaynaya, islamarkaana aada u saantiranaya. ugu dambeyn dembibaarayaasha way ku adkaatay sheekadii. kiiskii labaadna mar kale ayuu sidaasi waxa uu ku noqday kiis aan xalisnayn, unsolved case, yacni cold case ayuu noqday. wuu qaboobay kiiskii, lama garanayo, caddaynna lama hayo, cid lagu tuhunsan yahayna ma jirto. sifooyinka ay gabadhu sheegtayna, maadaama gabadhaani markii la kufsanayay aanaysan miyir daboolmin oo ay iska caabinaysay, sifooyinka ay sheegtay waa sifooyinka wiil walba uu yeelan karo. taas ayaana sheekada adkaysay. balse saaxiibayaal, dhacdadaasi maalmo uun kadib deegaanka Cudeyliya, mandiqatul Cudeyliya, waxa ay la balansaneed dhacdo kale oo aada u falxumo badan. dabcan saddexda deegaan ee hadda aan soo sheegayba waa ay isku dhow yihiin oo daqiiqado uunbaa loo kala socdaa. waxa ay Cudeyliya la balansaneed dhacdo xanuun badan. run ahaantii waxay ahaayeen qoys kuweytiyiin ah. qoyska waxaa u shaqaynaysay gabar u dhalatay dalka Philippine. gabadhaasi qol gooni ayay deganeed guriga marka la eego. dhanka kale qoyskuna halka dhinaca guriga dhinaca kale ayay ka deganayeen. aabbaha qoyska oo qol gooniya oo albaabka u dhow deganaa marka laga soo tago, dhammaan hooyada iyo caruurtu gudaha ayay jiifan jireen. ayadoo xaalku uu sidaa yahay ayaa waxaa dhacday habeen jawigu uu degan yahay in aabbaha reerku asagaa ka sheekaynaye waxa uu yidhi waxaan maqlay yar oo joogi jiray guriga hortiisa oo meel yar oo saxarada ama yani sandaqad yar aan uga dhisay si uu ugu noolaado. ma ahan ilaalo ah, waa yar oo saqiira oo meesha ay kusoo koriyeen. waxa uu eygaasi ayaan waxaan maqlay asagoo qaylinaya, ka'annamaa in uu u qaylinayo sidii uu u qaylin jiray marka uu cuntada loo dhigo aada u boobo oo ay dhuunta uga dhigto oo kaleeto, ama yacni wax ay ku mergadaan oo kaleeto, sida uu qaylin jiray oo kale ayuu u qaylinayaa. waxaa lis yidhi eyga maxaa ku dhacay, muxuu sidaan ugu qaylinayaa? kadib aduu cabaar waxbaan ka wehsaday uu yidhi. laakiin ugu dambeyn waxa uu yidhi waxaan go'aansaday inaan soo istaago si aan u eego eyga iyo qayladiisa, maxaa yeelay qayladiisu kala joogsi ma aysan lahayn. waxauu yidhi waan soo dhaqaaqay, guriga ayaan ka soo baxay si aan u eego eygii iyo meeshuu ku jiray. waxaan arkay eygii inuu nabad qabo oo qayladu meeshay ka yeerayso aysanba ahayn eyga, isha ama soorsiga codku ka imaanayana eyga uusanba ahayn. kadibna waxaan durba dareemay inuu codku ka soo baxayo qolka gabadhii Filibiiniyada ahayd ee shaqaalaha ahayd. qolkii ayaa waxa uu yidhi aan u tallaabsaday xaggiisa, anoon xitaa gargaraacin ayaan albaabku waxa uu yidhi awalba muusan xirmaynin, saa ayaan u riixay oo gudahan u galay. markaan galay waxa uu yidhi gabadhii waxaaba ku dul fadhiya oo howl ka haya ama kuufsanaya nin waxa uu yidhi jirkiisu aada u dhisan yahay, murqa waaweyn, yacni markuu saaduu isoo eegayba wuxuu yidhi wejigiisa, malaamixda wejigiisa si toos uma arkayo maadaama meeshu mugdi tahay, laakiin waxaan arkayaa inuu isoo eegayo. kadibna waxa uu yidhi ninkiiaan ku idhi waryaa maxaad meesha ka qabanaysaa? kadibna wuxuu igu jawaabay adiga laftirkaadu maxaa meesha kusoo geliyey? maxaa kusoo geliydu ilahayba waxa uu yidhi waa uu soo istaagay. kadibna waxa uu iga qabtay dhuunta, waa uuna i tuuray. saaduu iisii tuurayeyna waxa uu yidhi dharbaaxsho iyo wax kale waxaan kale aqoon waayey ayuu ugu dhuftay. waxa uu yidhi meeshii ayaan ku dhacay, asaguna waa uu orday. isla markiiba meeshuu ka baxay guriga albaabka sare ayuu kasii baxay. waa uu baxay uu yidhi. kadibna anigu waan qayliyey si aan xaaskayga iyo caruurtii dadka u kaciyo,
laakiin waxa uu yiri intaan qaylinayay ayaan ku baraarugay in waxa uu dhuftay aysan dharbaaxsho oo kaliya ahayn ee wax sida bir oo kalena ila jirtay gacantiisa oo uu dhiig iga socdo. kadibna asagii meeshii ayuu ku miir daboolmay. kadibna hooyadii reerka ayaa booliiska wacday. booliiska ayaa gurigii soo gaaray. gabadhii Filibiiniyada ahayd oo miir daboolan oo maadadii ayada ahayd uu ku buufiyey ayaa isbitaal loola cararay. asagana sidoo kale waa uu miir daboolmay, isbitaal ayaa loola cararay. على كل حال labadooduba xaaladoodu way soo hagaagtay. balse gabadhii Filibiiniyada ahayd markii su'aalo la weydiiyay la xiriira ninkaasi iyo siduu u ekaa, waxay sheegtay ma jiraan oo lagu tixraaci karo. dhammaan tilmaamaha ay sheegtay waxay u muuqanayaan tilmaamo uu yeelan karo wiil walba. nin aan dheerayn, aanan gaabnayn oo dhexdhexaada, jirkiisu dhisan yahay, murqihiisu xooggan yihiin, sidaa iyo sidaa ah. xitaa aabbaha reerku waxa uu tilmaamay wax aan macno badan oo sidaas ah soo kordhinaynin. waxay dambi baarayaashu bilaabeen inay baaritaanadii xoojiyaan. waxaa sii badatay cabsidii. meeshu waa Kuwait, waa waddan carbeed. sharafta iyo dumarka iyo waxa la xiriirahina waxay ka yihiin wax xasaasiya. ragga qaar waxay bilaabeen inay xiraaso ama waardiye ka qabtaan guryahooda habeenkii si ay kaliya sharafta dumarkooda iyo gabdhahooda u ilaashadaan, maadaama mujrimkan ama dembiilahani uu yahay mid aan wax uu cafinayo iyo wax uu reebayo jirin, oo dumarka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba iyo mid shaqaalaha iyo mid caadi aysan wax macnaa u kordhinayn ama wax farqiya uusan u dhaxaynin asaga dhankiisa marka la eego. dambi baarihii kiiska hayay iyo dhammaan caawiyaashii cadaadiskii ayaa kusii siyaaday. booliiska sidoo kale jagboontiyadii ayaa la badiyey. meel kasta ciidan booliis ayaa la dhigay. habeenkii ciidanka roontaynaya meel walba tirada ayuu ka batay. waxaa kaliya la raadinayaa ninkaasi oo ilaa iyo hadda xitaa midabkiisa ma cadaan ah mise madoowa aan la kala garanaynin, maadaama uun xilli mugdiya uu socdo. calaa kulli xaal saaxiibayaal, dembi baarayaashu mar kale waxay ku soo laabteen dhammaan dhibanayaashii ayagoo su'aalo weydiinaya. mar kale dembi baaris ayay samaynayaan. waxay doonayaan inay hubsadaan inuu jiro common qof la wadaagaan dhammaan dhibanayaashu, inuu jiri karo qof dhammaan qoysaska dhibanayaasha ama qoysaska dhibaatada loo geystay qof xiriir la wada leh oo kiisaska oo dhan soo wada geli kara haddii uu jiro, ama ay wadaagaan qof mushtaraga, maadaama ay dhammaantood isku si kufsiga uu dhacayo, isla maadadii la isticmaalayo, isku qofki uu yahay, caadi ahaanta qof ay garanayaan. baaritaano badan oo la sameeyey wax natiija maysan soo kordhin, balse qofka ugu dhow ee macluumaad sheegi karaahi waa gabadhii Kuweytiyada ahayd ee ayada iyo hooyadeed ay kaligood guri wada deganaayeen. gabadhaasi maadaama ay la dagaalantay ninkaasi, xoog uu ku kufsaday, mukhadarkaas ama maadadaasi uu ku buufinayay ay ka badbaaday, ayada ayaa ahayd qofka ugu dhow ee wax laga weydiin karo. dambibaarihii ayaa gurigooda ku booqday ayada iyo hooyadeedba. waxauna ku yiri maalmo ka hor wax qof aad ka sheegsantaha ma jiraa? waxay tiri maya. ma jiraa cid aad u malaynayso inuu ninkaas noqon karo? waxay tiri may. ninka hore ma u aragtay? waxay tiri weligay maana arag ninkan, waxna mana dhexmarin. nin wejigiisa ugu cusub yuu ahaa. waxa uu ku yiri soo kaleeta maalmaha inta dembigaana dhicin ka hor ma jiraan wax dhacay ama qof idin yimid ama wax laga yaabo inaad ka shakaysantahay? sababtoo ah ninkan gurigiina waa uu garanayay gudihiisa waxa ku jira, qolka aad jiifato, waa qof gudaha soo galay ugu yaraan ama macluumaad ka haya. ma jiraa qof idiin soo galay? gabadhii waxay tiri nasiib wanaag, waxaa jirta ayay tiri haweeney maalin dhexdaasa noo timid, laakiin waxau yiri ma garanayno. waxay ku tiri ma garanayo haweeneydaasi. sababtoo waxay tiri way noo soo gashay, wayna salaantay, waxayna noo sheegtay inay tahay khadaaba. khadaaba waxaa la yidhahdaa haweenka raggu ay diraan si ay dumar ugu doonaan ee guursadaan. sida inaad haweeney u tagto aad ku dhahdo gabaran guursado ayaan doonayaa oo sifooyinkaas leh ii raadi, kadibna ay baxdo ay dumarka kale u tagto si ay u weydiiso gabar guur u diyaarsan oo kaleeto, ama gabar guur u joog oo kaleeto ay kuugu raadiso. marka haweenkaas ayaa waxaa la yidhahdaa khadaaba. haweeneydaas waxay tiri waxay noo sheegtay inay tahay khadaaba oo ay qoyskan ugu timid si gabar hadday gabar u joogto. dhanka kalena arinka la yaab kale waxa uu yahay gabadhan Kuweytiyada ah ee ayaday hooyadeed guriga wada degan yihiin ee kufsiga loo geystay, waaba gabar la qabo, ninkeedu safar ayuu ku maqan yahay, ayada iyo hooyadeed ayaan halkan ku wada nool. marka waxay ka dhigan tahay haweeneydaas khadaabada ah ama khadaabad inay tahay sheeganaysaa way ku soo qaldantay gurigooda. waxay ku tiri
waxaan doonayaa gabar. Kadibna waxaan ku dhahnay tiri gabar nooma joogto guur u diyaarsan. Waxay tiri heblaayo gurigeeda soo ma ahan kan. Kadibna waxay tiri waxaan ku niri may maahan waa guriga dariskeena heblaayadaasi. Kadibna waxay tiri waaya iga raali noqdaa wayna ka soo tagtay haweeneydii. Waxay tiri markii gabadhii markay saa nooga baxday oo guriga albaabkiisa ay ka baxday ayaa waxaan aragnay nin albaabka taagan oo sugaya ayada kaasoo aad mood inuu banaanka u taagnaa intii ayadu ay nala joogtay oo dhan. Kadibna waxay tiri way israaceen. Markaas ayaa dembi baarihii kiiskaani gacanta ku hayay waxa uu bilaabay inuu ka shakiyo ninkaasi waxa uu yahay iyo haweeneydan iyo ninkaasi xiriirka ka dhaxayn kara. Kaanamaa in haweeneydu ay guriga yool baaraysay dadka jooga iyo xaalka guriga waba sida in ninkan iyo haweeneydan ay is og yihiin. Adigu shakiga ugu badan oo dembi baaruhu xilligaas uu dareemay sida ayuu ahaa, inkastoo aan la dhihi karin shakigiisu waa run ama waa been aan la dhihi karin oo wax mala ay tahay, haddana waxa uu isdhahayay haweeneydaas khadaabada sheeganaysa iyo ninkaasi banaanka u taagnaa waxaa dhici kara inay kiiskan lug ku leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee dembi baarihii hooyadii iyo gabadheedii waxa uu weydiiyey in haweeneydaasi ay garan karaan, muuqaalkeeda hadday arkaan inay aqoonsan karaan. Laakiin gabadhii ayaa waxay u sheegtay, waxay ku tiri waxay noo sheegtay magaca gabar ay raadinaysay, gabadhaasina waa gabadha u joogta qoyska aan dariska nahay. Marka qasab waxa ah inay qoyskaasi u tagayso markay naga tagtay kadib. Marka bal qoyskaana u taga. Kadibna qoyska ayay u tageen oo ku dhaheen haweeney khadaaba ma idin timid maalinkaasi, taariikhdu ay ku beegan tahay maalinkaas. Marka ma xasuusataan? Waxay dhaheen waan xasuusanaa, way noo timid, gabar ayayna weydiisatay. Kadibna waan u sheegnay inaysan gabari noo joogin, gabadheenu ay nin kale u doonan tahay, wayna naga tagtay. Waxay ku dhaheen wax ciwaana ma idin reebtay inay khadaaba tahay oo gabar doonayso? Waxay ku dhaheen way noo reebtay laafitada yar, wax yaroo warqada oo kartuun yar oo qofku meeshaad kala soo xiriiri karto adreeskiisa iyo meeshaad geli karto ku qoran tahay, way noo reebtay. Kadib waxaa la fiiriyey warqadii yareeday u reebtay. Kadibna waa la dabagalay, gurigeedii la tegay haweeneydii. Waaba haweeney 48 jir ah. Waa la soo qabtay. Markii saa loo soo qabtay waxa lagu yiri maxaa tahay adigu? Waxay tiri anigu waxaan ahay khadaaba, waxaan ka shaqeeyaa ragga inaan dumarka u doono, shaqadeedana weeyaan. Waxay ku dhaheen okay, maalinkaasi qoyskan ma u timid? Waxay tiri waan u imid. Waxa lagu yiri yuu ahaa ninkaasi oo adigaad gabadha u doonaysay? Waxay tiri ninkaasi waa hebel, sidoo kalena xaas ayuu qabaa, caruur ayaa u joogta, waxa uu doonayay inuu labaysto. Aniga ayuuna ii sheegay oo iga dalbaday inaan u doono. Maalinkaana si khalad ayaan gurigan u soo galay. Sidaa ay waxa muuqanaysa haweeneydu inay qof daacada tahay. Kadibna waxay ku dhaheen way soo wadeen, saldhigay keeneen. Kadibna ninkii ayay dooneen, ay tilmaamtay. Ninkii ayaa la soo qabtay. Ninkii markii saldhigii la keenay, sawirana laga qaaday, ayaa mar kale warbaahintu waxay isla dhex martay in la soo qabtay ninkii khalqalka iyo argagaxa ku abuuray dalka Kuwait oo dhan. Kadib ninkii aada loo fadeexeeyey, xaaskiisii way maqashay, qoyskiisii kale way maqleen, way ka caroodeen inuu xaas kale raadinayay. Sidoo kaleeto markii laakiin baaritaano la sameeyey oo gudaha loo sii galay, waxaa la ogaaday ninkani in uu nin daacada yahay, uusan shaqo ku lahayn kiiskan. Waxa uu yiri anigu waxaan doonayay inaan labaysto, haweeneydaana gabar aan ka helay ayaan u tilmaamay gurigeeda, halkaasaan ku sugayay. Kadibna gurigaan u tilmaamay midaan ahayn ayay gashay dabaalnimadeeda. Waxa uu yiri markay guriga gashay intaan banaanka taagnaayo dhan waan sugi la'aa, waana ka xanaaqsanay. Waay gurigaan ay u galaysaa? Gurigaan ayaanba u tilmaamay, inkastoo labada albaab ay isku dhow yihiin. Waxa uu yiri markay soo baxdayna waxaan ku yiri maxaa kugu dhacay? Sawtaan wuu tilmaamay gurigaan, maxaad ka doontay gurigaas? Kadibna gurigii ayay gashay. Guriga markay gashana gabadhii aan raadinaynay waan weynay oo gabadhaasi guur uma joogto hadda ayaana lagu yiri. Adoo cala kulli xaal baaritaano la sameeyey, waxaa lagu ogaaday ninkaasi inuusan kiiskan shaqo ku lahayn, laakiin xilli la fadeexeeyey asaga iyo xaaskiisa isku dhacsan yihiin ayaa la sii daayay. Kadib waxay bilaabeen dembi baarayaashu inay baaritaano xooggan sameeyaan, sababtoo ah markii ugu horreysay isku daygii ay sameeyeenba way ku fashilmeen oo nin beri ah ayay soo qabteen. Baaritaanadu xowli ayay ku socdeen, balse isla xilligaasi ayaa mar ay ku beegan tahay saacadu 12 saqda dhexe ee habeenimo waxaa soo wacday booliiska haweeney qayla dhaaminaysa. Waxa ay leedahay gurigeyga ayaan joogay, balakoonka ayaan waxaan ka maqlay dhawaq.
kadibna waan u soo baxay yani markaan maqlay dhaqdhaqaaqa qof meesha taagan saa waxa uu noqday baa nin murqa waaweyn oo jirkiisu u dhisan yahay. waxay tiri intuusan tallaabo qaadin ayaan aad u qayliyey heer qayladeeda deriska oo dhan ay maqleen. ninkiina waxay tiri si tartiiba ayuu u degay oo albaabka uga baxay. ninkaasi waxay tiri oo weliba aanan la yaabanahay sababta eygeygu uu u qaylin waayey markuu gudaha soo galayay ayaa ii soo galay. markii ninka sifooyinkiisa ay tilmaamtay khalaas waaba isla ninkii la raadinayay. kadibna waxaa la yidhi bahala sameeyo istinfaar, xaalad degdega siiriga digniinta meel kasta halay yacni booliiskiyaa la kala firdhiyey, jagboontiyo tiro badan, baaritaan guri kasta iyo luuq kasta ayaa la sameeyey. laakiin yacni waxaa dhacay wax kale oo kedis cajiiba ayaa dhacay isla xilligaasi. kediskaasi muxuu ahaa? intaba yacni waa ka hor yacni intaysan haweeneydaani soo qaylin, inta yacni aysan haweeneydaani dhihinin ayaa ii soo geli rabayoo iga baxay waxaasoo intaysan dhicinayso booliiska soo wicinba. dhacdadaasi ka hor ayaa waxaa jiray nin sarkaal dembi baaraha oo lagu magacaabo Maniic Albasmaan. ninkaasi dembi baaraha ahi waxaa dhacday faldambiye tuuganimaha oo suuqa weyn ka dhacday. kadibna askari ayuu hore usii watay si uu baaritaan ugu soo sameeyey arrintaasi oo uu su-aalo usoo weydiiyo dadka kulugta leh ama looga shakisan yahay, iyo sidoo kaleeto dadka yacni loo geystay dhaca falka tuuganimada suuqa gudihiisa. waa uu baxay asagoo askarigiisii wata, yacni askari uu saldhigga booliiska ka soo watay. markii uu meesha tegey dembi baarista ayuu soo sameeyey, su-aaluhu weydiin rabo dadka soo weydiiyey. kadibna waa uu soo laabtay asagoo usoo socda saldhigga booliiska ee Cudeyliya. ayaa waxaa dhacday in meel uu ku arkay nin gaari ku dhex jira ama gaari meel taagan oo aan dhaqdhaqaaqaynin. markay saa luuqa goolada kusoo galeen ayaa waxa uu yiri gaarigii wuxuu bilaabay inuu gaarigii kiciyo qofkii oo carro. kadibna waan ka shakiyay ayuu yiri maadaama faldambiye tuuganimaha aan ka soo baxay, waan ciirsanay ayuu yiri. kadibna waan soo qabanay ninkii. waxaan ku yiri maxaa kugu dhacay, maxaad la cabsatay, maxaad la argagaxsaneed? wuxuu yiri maya waxba iguma dhicin, mana cabsanaynin, kaliya waan kaa cararayay, kaliya warsee wax kaa yihiin. saa ninka carabkiisu waaba uu adag yahayba. waa nin sifooyinka dabcan asagu markaas sarkaalku ma oga kiiskan, shaqana kuma leh kiiska kufsiga iyo waxaasi shaqo kuma lahano marna looma dirin. waa nin dembi baaraha yani ninkaani asaga qof ku cusub ayuu ula muuqanayaa. wuxuu la yaaba laakiin in carabkiisu uu yara adag yahayo waa uu weydiiyo. waxuu ku yiri waa maxay, maxaad la carab adag tahay? waxaa tahay mukhadaraad aad ka ganacsataa, mukhadaraad aad isticmaalaysay? waxuu yiri may warqadan eeg. wiilkii ama ninkii ay soo qabteen ayaaba warqad u soo bixiyey oo ku yiri mudane dembi baare, anugu waxaan ka soo baxay isbitaalka caafimaadka, yacni isbitaalka waxaan dhihi rabaa cudurrada nafsiga lagu daaweeyo ayaan ka soo baxayo waan xanuunsanaa. hadda dhow ayaanba isbitaalka ka soo baxay saacado ka hor. dawo ayaan isticmaalay, waxaad iga dareemaysa jirkayga iyo yacni inaan sarqaansanaha maahane dawo ayaa ii socotay. waxaa la weydiiyey yacni dabcan gaarigiyaa la fiiriyey, gaariguu watay, taargadii gaarigaa la eegay. saa gaariga waxaaba iskale gabar walaashiisa. kadibna aduu sarkaalkii ninkii wuu soo qabtay si kastaba ha ahaatee oo saldhiggii booliiska u keenay. waa markuu taargadii baaraya gaariga walaashiisa gaariga yeelatay. kadibna cabaar kadib markii su-aaluhu weydiiyey oo arkay ninkaan inuusan wax khalad ama wax dembiya lahayn waa uu iska sii daayay. waxuu ku yiri islaale markaad booliiska aragto ha isku day inaad cararto, maxaad la cabsanaysaa, ma dembiile ayaa tahay? calaa kulli xaal ninkii waa la soo daayey. kadibna ninkii dembi baaraha ahaa waa uu isaga soo tegay saldhiggii booliiska ee Cudeyliya. waxa uu soo aaday dhanka iyo Rawda. markii uu yimid saldhigga booliiska ee Rawda ayaa waxauba arkayba in halkaasi uu yaallo kiis kale. kiisku waa maxay? ninkii laga baqayay ee yacni buuqa iyo sawaxanka ka abuuray dalka Kuwait oo dhan, nin loo malaynayo inuu isla asagii yahay ayaa gabar hadda dhow u dhacay. gabar ayuu rabay inuu kufsi u geysto, laakiinse gabadhii way qaylisay waa uu isaga tegey. isla hadda daqiiqado ka hor ayayna waxaasi dhaceen. daqiiqado ka hor ninkii tilmaamihiisa dabcan gabadhii tilmaamo ayay bixisay, tilmaamihii ayuu fiiriyey. saa ninka tilmaamahan le ee dharka noocaana wata hadda dhow ayaanba ka soo waday meel aan ka fogeyn meesha gabadhu hataa gurigeedu inuu ku yaallo aad sheegaysaan. gabadhan soo dacwootay oo sidee? wuxuu yidhi ikaadi wax yar. waa uu soo baxay dembi baarihii
hal askari hore ayuu soo watay waxa uu soo aaday saldhiggii booliiska Cuteyliya sababtoo ah meeshaas ayuu wuxuu uga qoray report ninka intuusan deynin ka hor reportkii uu ka qoray oo adresskiisa iyo macluumaadka kale ay ku qoran yihiin ayuu u tagay waa uu soo qaatay waa uu booday gurigiisa ayuu ugu tagay gurigiisa markuu tagayna waa uu soo qabtay markuu ninkii soo qabtay waxa uu ku yiri waxa tahay dambiile weyn saldhiggii booliiska ayuu keenay halka ayuu dambi baaris kula sameeyay ninkii dambi baaris lagu sameeyay aduu cadaadis la saaray waxa lagu yiri waa adiga laftirkaada ninka Kuwait oo dhan ay ka degi laadahay ee isku day inaad qirato dambigaada ka hor inta aanan sidaan si ka duwan lagu sameeynin ala kulli xaal ninkii waa uu inkiray waxa uu yiri anu arrimaha sheegaysan shaqo kuma lihi kadibna gabadhii ayaa loo yeeray gabadhii ayaa timid waxay tiri waa kan ninkii soo dhici rabay waa asaga laftirkiisa waan hubaa isla dharka ayuu wali wataa waaw gabadhii markii uu arkayba ninkii waxa uu yiri okay waa run gabadhan kaliya ayaan weligay isku dayay inaan faldambiyad noocaas u geysto mana rabin inaan kufsado gabadhe waxaan rabay kaliya inaan wax ka xado inaad wax ka xado ayaad rabtay khalaas waxa uu ku dhahan anagu kuma haysano kaliya gabadhan hadda waxba kuma sameynba wad cabsi gelisa laakiin se kiisas kale ayaa lagu haystaa kiisaskii kale ayaa loo soo bandhigay gabadhii Hindida ahayd gabadhii Kuwaitiyada ahayd ee hooyadeedii ayadu guriga ku wada noolaayeen iyo gabadhii Filibiiniyada ahayd ee cida shaqaalaha u ahayd ala kulli xal saaxiibayaal dhamaan faldambiyadadaasi waa uu inkiray waxa uu arinta shaqo kuma lihi arinta kale kiiska sii adkaysay ma garanaysaan waxa kiiska sii adkaysay in ninkani uu ku jiray isbitaal lagu daweeyo cudurrada nafsiga uu ku jiray xilliyada ay faldambiyadadan oo dhan dhaceen isbitaal ayuu ku jiray say ku dhici kartaa waa la tagay dhakhtarkii waa uu qiran yahay dhakhtarku yani isbitaalka reportku uu yaala inuu isbitaalka ku jiray oo waliba aan loo ogolayn inuu banaanka u baxo ninkani waaw sidee wax u jiraan hadaba saaxiibayaal waxa lagu yiri nakeen gabadhii hadda aad qiratay ee aad tiri waxaan ka hadi rabay ee ugu dambeysay bal nagay gurigeedo kala qiro oo noo jilin noo sameey ina sidaad u gal rabtay meesha ka soo gashay iyo nakeen guriga la geeyay markii ninkii dambi baaraha waa uu yaabay gurigii markii uu la geeyay wuxuu la yaabay markii hore dhageystaya sheekada fahma markii hore ee uu suuqa iyo faldambiyadka xaditaanka dambi baarista soo sameeyay uu soo baxay asaga askari isla socdeen waxa uu arkay gaariga asoo meel taagan soo maahan sa gaarigu meeshuu guriga uu hadda geeyay waaba gurigii gaarigu uu hortaagnaa yaa gurigii uu gaarigu hortaagnaa markii ay ka shakinayeen oo ugu horeysay ayaaba wuxuu yahay gurigii gabadha malaha markaas waa sugayay gabadha inuu faldambiyadkaasi u geysto ala kulli xaal gurigii markii la tagay yani waxa cadaatay in ninkani markii hore dambi baaruhu uu soo qabtay asagoo ninkani faldambiyad ka raba inuu geysto kadibna saldhiga ayaa la geeyay xogaa su'aalaha la soo weydiiyay ribooda laga qoray kadibna waa la soo daayay ninkan sidoo ugu adadkaa inuu falkaa sameeyo habeenkaas waliba isla habeenkaas aysan dhaafin markii la saldhiga laga soo daayay uu soo baxay kadibna waa kan gabadha u dhacay balse ilaahay qadaray in uu awoodi waayay gabadhii qaylisay kadibna ugu dambeyn isla kiiskiisa u noqday in la soo qabto laakiin markan waxaan tagaynaa markii guriga gabadha la geeyay ee la yiri jilliinka sameey aan aragno bal sidaad wax u sameysay gurigii markuu jilliinka saan loo sameynayayba guriga ay ayaa u joogay gabadha eegii ay gabadha isku haleynaysay ninkan isuu ku dhaafay markii booliiskii iyo asagii iyo guriga ay tageenba eegii qayla ayuu bilaabay su'aasha la isweydiiyay waxay tahay marka suu eegu u qayli waayay markuu kaligii soo galayay ala kulli xaal markii eegii agtiisa istaageenba oo eegii uu rabo inuu weerar ku soo qaado yani askartii iyo asagiiba ayuu farta nuuxiyay yani faraha ayuu wax action yar oo fariisa uu sameeyay eegii waa aamusay uu iska fariistay eegii oo sidee maxaa qaldan eegii wuu fariistay kaliya wax yar oo faraha u dhaqaajiyay ninkani arin la yaab la ay ahayd dabcan way ku dareen kiiska oo reportka ay ku dareen ay qorayeen gadaalanka ogaan doonaa maxay sababtu maxay tahay ninkan muxuu sameeyay ala kulli xal saaxiibayaal dadkii kale ayaa ninkii eegay gabadhii Kuwaitiyada ahayd si fiican yani umaysan garanin umaysan aqoonsanin laakiin waxay tiri waxaan u maleynayaa inuu asaga yahay balse ninkii odayga ahaayay gabadha Filibiiniyada ahayd ee gurigiisa ka shaqeynaysay ee hadda ka hor baaxshada uu ku dhufan jiray la miir daboolmi jiray ayaa wuxuu yiri ninkan waa asagi intaas oo qof lagu dhex daray xitaa oo ka soo dhex saaray wuxuu yiri waa asagi waa dambiilihii marka laba kiis ayaa ninkan loo haystaa
labadii kiis oo gabadhii Filibiiniyada ahayd oo ninka odagahay uu sheegay inuu asaga yahay waa uu qirtay wuxuu yiri okay kiiskaasna waan ka dambeeyay labadaas kiis oo kaliya gabadha Filibiiniyada aan kufsaday iyo sidoo kaleeto gabadhan hadda aan isku dayga sameeyo wax kale ma jiraan labadii ayaa lagu maxkamadeeyay waxaan lagu xukumay dil waxa lagu xukumay ayraadii xabsi daa'in markii lagu xukumay dhageysta marka sheekada la yaab kale meeshaan ay ka jirtaa ayadoo labadaas kiis oo kaliya xabsi daa'in lagu xukumay ayaa waxay isweydiinayeen dambi baarayaashu ninkan maadada uu isticmaalay maxay ahayd maadada uu isticmaalayo meel kasta laga raadiyo waa laga waayay wax kasta oo khubaro kiimikaal kasta loo geeyo waxay dhaheen maadadan ma garanayno mana fahamsanin laakiinse componentigeeda ama waxa isku dhiska uu ka kooban yahay ayaan wax ka garanaynaa isku seelaysu geeyay iyo waxa gudaha ay ka kooban tahay laakiinse ma garanayno runtii wax la yaab la ay ahayd dhaqaatiir badan ayaa isku dayaysay inay sheegaan waxa uu ka samaysan yahay waxaan uu dadka ku shubayo balse saaxiibayaal hal mar aynu ogaano wiilkani eedeysanaha iyo waxa uu yahay wiilkani waxa lagu magacaabaa Faysal Bakhayd waxa uu dhashay dalka Kuwait waa nin dhalinyaro oo wali aan guursan laakiin dhanka kale waa nin mukhadaraadka isticmaala waa sax jirkiisu waa xoogan yahay laakiinse walaashiis asaga ka weyn ayaa waxay kula jirtaa dagaal xoogan oo waxa ay ku qasbaysaa inuu isbitaalka joogo si uu halkaasi ugu qaato waqti oo uga caafimaado maadooyinka daraagiskaana uu uga go'o iyo wax la xiriira balse ninkan arrimahan kale ayaa malaha laga yaabaa inay u yara macaanadeen markii la soo qabtay wiilkii Faysal ahaa waxaa dhacday in dalka Kuwait oo dhan hal mar ay isla kacaan Faysal jirkiisii markii la arkay sawirkiisii lagu arkay wargeyska ayaa dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay ka hadlaan caan ayuu noqday saaxiibayaal xilligaasi ay dhaqaatiirtu ka fikirayeen inay ogaadaan maadada uu isticmaalayay asaguna uu diidan yahay inuu ka sheekeeyo maadadan run ahaanteeda iyo waxa ay tahay ayaa intii uu xabsiga ku jiray waxaa loo geeyay nin kale oo maxbuus ah laakiin ma uusan ahayn maxbuus caadi ah waxa uu ahaa nin ka tirsan hay'adda dambi baarista dabcan ninkaasi oo dhar ahaan lebis ahaan muuqaal ahaan intaba jilayay nin maxbuus ah ayaa loo geeyay waa uu la sheekaystay waxa uu ku yiri dabcan maalmo ay qaadanaysaa inuu iska dhaadhiciyo inuu yahay qof caadiya waxay qaadanaysaa waqti dheer inuu dawladda caayo booliiska caayo nidaamka caayo uu iska dhigo qof maxbuus oo dhibanaa waxaas oo dhan jilliinkaas waqti ayuu qaadanaya laakiin markii ay intaas oo dhan suura gashay ayuu ninkii waxa uu weydiiyay Faysal waxa uu ku yiri Faysalow nin rageeda anu adoo kale inaan noqdaan doonayaa sababtoo ah waxaan arkay sida aad uga cabaadisay dawladdii Kuwait oo dhan dadkii oo dhan argagax u gelisay caan ayaad noqotay caadi ma tihid bal niyow iga waran sheeg qisadaadu waa maxay waxa uu yiri hadda xabsi daa'in ay igu xukumeen 2 kiis oo kaliya ayay u cadeeyeen laakiin hadday ogaan lahaayeen waxaan ku sameeyay malaha markaan dil ayay igu xukumi lahaayeen wuxuu ku yiri niyow iga waran maxaad samaysay waxa uu hadday ogaan lahaayeen gabar Hindi ah oo hadda ka hor aan kufsado shaqaalaha hadday ogaan lahaayeen gabar Kuwaitiyada ayaday hooyadeed guri ku wada nool yihiin iyo hadday ogaan lahaayeen gabar noocaasa waxa uu tiriyay gabdho fara badan oo xitaa hore aan loo ogeyno ayuu kiiskooda qariyay meeshaan waa dalka Kuwait wad ogtihiin ninkan gabar ayuu kufsanayaa qoyskiina way qarsanayaan dhacdadaasi si sharaftooda ay u ilaaliyaan si arrintaas aysan saameyn ugu yeelan waxaa aad uga tiro badan dadka qarsaday dhibaatada uu ninkani u geystay markii uu arkay dadku inay qarsanayaan ayuuna ku sii fogaaday sheekadan markii uu waxaasoo dhan ka sheekeeyay ayuu waxa uu ku yiri waxaan la yaabay Saudigan ay ku leeyihiin isbitaal ayuu ku jiray xilligaas see arrintaas ku dhici kartaa waxa uu isbitaalka waa sax walaashay ugu ogtahay isbitaalka laakiinse isbitaalku kumaanan jirin markii dhacdooyinku dhacayaano kalkaaliyayaashu dhakhtarku waa sax waa uu ugu ogyahay isbitaalka gaar ahaan departmentiga oo aan jiifanayo balse kalkaaliyayaal waxaan helay yiri xarfaana waxaan siiyaa dhowr diinaar oo kale waxbaan siiyaa yar kadibna way iska keydayaan waan iska soo baxaa waxaan rabaan soo samaystaa waan soo laabtaa sariirteedaan ku soo laabtaa intaasoo dhanna wixii dambiyo aan geysto waxaan ku qoranahay inaan ahay nin isbitaal ku jiray qofina markaasi igama shakin karto inaan dambigaasi geystay arrintaasna waxay ahayd daaha aan isku qarinayay
kadibna waxa weydiiyey niyow waa maxay maadadan aad isticmaashay dadka aad ku buufiso kadibna waa uga sheekay waxa uu ku yiri maadadan fikradeyda ayaan kala soo dhaxbaxay samaysankeeda waana maadooyin caadi oo aan isu geeyay maado wax lagu rinjiyeeyo maado noocaasa dawo yani cayayaanka loo waxyaabo noocaasa isu geeyay waxaana ogaaday saameyntooda oo tijaab ahaan ayaan ku sameeyay kule xayawaanay waxba ku tijaabiyay kadibna waxa uu yiri waan isticmaalay oo sidaa ayaan u isticmaalay waaba arin la yaab leh ku dhawaad 4 maado ayuu isu geeyay oo mid kasta saameyn gooni ay leedahay isku darsanka maadooyinka ama reactant yani falgalkaasi natiijada ka soo baxday maadooyinka la isu geeyay kadib ayaa sababaysa miyir daboolanka iyo qofku inuu aqligiisa dhan hal mar waayo iyo qofku inuu jirkiisu dhaqaaqi waayo waxaasoo dhan waxa sababaya maadooyinkaasi la isku daray ala kulli hal saaxiibayaal ninkii mar kale ayaa macluumaadkii uu gudbiyay waxa la geliyay faylkii dib ayaa loo maxkamadeeyay waxaana lagu xukumay xabsi daa'in kale 2 xabsi daa'in 3 xabsi daa'in yani waxaasoo dhan waa un isku xabsi daa'in balse saaxiibayaal sida aad ogtihiin ba qisooyinka dalka Kuwait nasiib darana in badan aad qisooyin ku soo maqasheen ba markii la soo gaaray 91 sanadahaas dalka Kuwait waxa ka dhacay ama ay la balansaneed dawladda Kuwait waad ogtihiin waa dagaalkii Ciraaq iyo Kuwait dagaalkaasi markuu dhacay ama duulaankii Ciraaq aday kartaay Saddam markii uu dhacay waxa dhacday in maxaabiis badan ay xabsiyada iskaga baxsadeen oo meel ay aadeen aan la garanayn ninkii Faysal ahaana waxa uu ka mid noqday maxaabiistaasi baxsatay ilaa yiminkadana lama garanayo meesha uu ku dambeeyay laakiin waxa kaliya la ogyahay waa inuusan dalka Kuwait ku sugnayn inuu nool yahay inuu dhintay lama garanayo ninkii la yaabka lahaa ee dumarka kaliya argagaxa ku abuuray dhammaan dumarkii dalka Kuwait dumarka oo kaliyana beegsanayay yani umuuraha ama waxa kaliya uu socdana ay ahayd kufsiga inkastoo wax dila uusan geysan nafna uusan jarin haddana sharafta gabdhaha dalka Kuwait ku ciyaaray in badan oo kamid ah qisadii saaxiibayaal halka ay ku